إله ونفوذ. بسم الله ونفهنسي كوك رقمنا إله ونكري. بسم الله. تمسك قبصو بحبل الله حرق الله واتبع راع الهدى هنونك ولا تكه نقن بدعيا بدعولي لعلك حقيقي تفلح والليبانية. قبص حرق الله يعني قرآنك iyo sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam oo raac hanuunka hana noqon bidcoole aad liibaantide. sheekh laba arin ayuu halkan ku sheegay, hidaayada iyo bidco. alhuda soo dhihin iyo bidciyan. marka hidaayadaas iyo bidcadaas waxay mudan yihiin in la dul istaago. hidaayadu waxay u qaybsantaa laba: hidaayatun dalaala wa irshaadin wa bayaan. xaqoo lagu cadeeyo weeye macnaheeda. hidaayadu waxay u qaybsantaa labay u qaybsantaa. midda koowaad waxaa la yiraahdaa hidaayatun dalaala wa irshaadin wa bayaan, xaqoo lagu cadeeyo weeye. midda labaadna hidaayatun tawfiiq wa ilhaam, xaqoo lagu waafajiyo waay. marka waa su'aal, yaa xaqa ku cadeyn kara, yaase xaqa ku waafajin kara? aan isla eegna marka. midda koowaad haddaan dul istaagno, hidaayatun dalaala wa irshaadin wa bayaan uu macnaheedu yahay xaqoo lagu cadeeyo. الله إسقوا أرنتا كهذا وحيري وأما ثمود رير ثمود فهديناهم وحينوت السنة حقي فاستحبوا وحيكج على ذين العمى على الهدى انطلقان يعني باذي هنونكي فأخذتهم وحانقبتي صاعقة العذاب الهوني قيل عذاب وحد اللية بما كانوا يكسبون وحي كسبني يندرتك. هداية مدة اللبات هداية توفيق وإلهام الله حق والله وافجيه. إسقوا الله كهذا وحيري إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي أذوق مهنوني سيد نبي محمد من أحببت عداد جعشهي، لكن الله يهدي هنونية من يشاء عدو دونه وهو أعلم بالمهتدين. إسقانا كوا هنونسا in xaqa lagu waafajiyo, qalbigana hanuun lagu geliyo, diintana lagugu sugo, aadna ku dhimatid kaliya alle unbaa awooda. nabiga ma awoodo inuu xaqa ku waafajiyo, wuxuu awoodaa inuu ku tusiyo innaka laa tahdii man axbabta walaakin allah yahdii man yashaa. sidoo kale sheekha wuxuu yidhi ha noqonin bidcoole. haddaba waa maxay bidco? marka halkaa waxaa isticmaalay calaamada استعمالي أو عضينيسا إن هذا الشيء وحن كجري ما دام أنا هرؤس وشيء. سيدا كل شيء وحويري هنقون بدعولة. هذا هو محي بدعو والبدعوي محاطهي بدعو. قال ابن عثيمين وحويري ابن عثيمين البدعة لغة بدعة وحلوير هذا شيء المستحدث، شيء عصب، شيء عصب الوير هذا. سيدوك البدعة وحالير هذا شيء يعني أن لقاه الرين أذكر. هذا آية القرآن كذا في رسوك طبعا كم مقرن عفوا بديع السماوات إلهي دحولية هي إلهي بديع ومتك أن لقاه الرينين يا عرك دولك إلهي ماذا أورث مجرين بدعنا يعني وحن لقاه الرين أذوه الرسوي. علماء ذاك الوحير هذين بدعة وإن أذوح سمايسه أظن كجد يانين عدك أجوه الرئيسي. waxaa la dhahaa bidca la dhahaa inaad wax samayso adoon kaga dayanaa cid kaaga horeysay taana bidco. bidcadu oo wixii diinta lagu soo daray. rasuulkeenna wuxuu inooga digay bidcada, wuxuuna noo sheegay inay baadi tahay, baadiduna ay naar kugu tuuri. halkaas waxaan kaga soo baxaynaa marka hidaayadii iyo bidcadii. halkan waxaan ka gelaynaa kitaabka ilaahay in la qabsado, sunnadiisana lagu dhago. sheekhu wuxuu yiri wadin ka diin dhigo bikitaabillahi kitaabka alle والسنن iyo sunnooyinkii allatii taasoo atad ku soo aroortay can rasuulillaahi rasuulka alle tanju waad badbaadiye watarbax waad faa'iidiye. ka diin dhigo quraanka iyo xadiiska saxiixa. wardiin inta laga qaataa diin horta inta laga qaataa kitaabkaas iyo sunnada laga qaataa. marka labada ka diin dhigo marka kitaabka quraanka markuu ka hadlayay waxba ma dhihin, laakiin sunnada markuu ka hadlayay wuxuu yiraahday atad nabiga ka soo aroortay, yani xadiis saxiix uu ka wadaa oo xadiis daciif ah dee ka diin dhigan. ka diin bariyahan dama
دلين waxaa soo baxay axaadiis aan iska fiirinayno xadiidkay maqlaan bi iska sheegay tolo ma daciifa ma saxiixa warba kama hayaba nabiga yiri iska leeyahay wal billahi alaykum bal soo hubsada inuu xadiidka daciif yahay inuu saxiix yahay maadaama waxa sheegayso ay diin tahay sheekhu wuxuu yiri sheekh halkan wuxuu kaga galayaa war kale uu rabaa inuu noo bilaabo rag baa waxay yiraahdeen quraanka waa makhluuq waa la abuurayba qaarkood waxay yiraahdeen quraanka lama abuurin qaarna waxay yiraahdeen or arinta waan ka istaageynaa waa kana wuxuu yiri waqul waxaa tiraahdaa غير مخلوق mid la abuuray maaha kalaamu malikina boqorkeena hadalkiisa bidaalika sidaasay daana ka diindhigteen al-atqiyaa kuwii cabsida badnaa wa afsaxuu ayna u caddeeyeen dadka walaa taku ha ahaanin fi lqur'aani qur'aanka dhexdiisa bilwaqfi qaa'ilan mid dhaha istaagid kamaa sidii qaala ay yidhaahdeen atbaacun kuwii raacay lijahmin jahm ibnu abi safwaan wa asjaxuu wayna fududaysteen sheeqa laba qolo ayuu kaaga digayaa kow waaqifiya laba jahmiya labadan qolo marka waxay yihiin waan baranaynaa aan isla eegno cajiib waaqifiya markuu sheekha waaqifiya ka hadlayay wuxuu yiri hadhihin quraanka dhexdiisa waxa ah istaagid waxay yiraahdeen quraanka waa hadalka ilaahay hada waa run quraanka waa hadalka ilaahay waxa lagu yiri ku dar lama abuurin asayeeshe way diideen waxayna yiraahdeen waan ka istaageynaa saasa loogu bixiyay waaqifiya yaa ila waqfi wax la jaangooyo meesha la dhigo lagu istaago waqtahay waxay yiraahdeen quraanka hadalka ilaahay waxa war hada hadalka ilaahay ku dar lama abuurin may ka gaabsanayn arintaas kama hadlayno qolada labaad ee arinta ku luntay waa jahmiya jahmiya waxay yiraahdeen quraanka waa la abuuray sidaa darteed ayuu sheekha ku leeyahay hadhihin sidii ay yiraahdeen kuwii raacay jahm ibn abi safwan hadda qoladan jahmiya qadariya jahmiyadan kuwan dambe quraanka waa la abuuray culimada ka sharaxay waxay leeyihiin kuwaas dhamaaba laana kuwa kale kuwaas ka daranba ya kuwaas kuwana dhama warkooda cadeystaba ولا تقل القرآن قرآن كهدهن خلقا مخلوق وي قرأته آن أخريي فإن كلام الله هذا الكي الله أيا باللفظ يوضح لغو عدايا مركا قرآنك المخلوق معها وهذا الكي الله سبحانه وتعالى